soo dhawaada saaxiibayaal mawduucan waxaan ku dul istaagi doonaa xaaladda loo yaqaano gynecomastia in wiilasha ama ragga qaybihiisa kala duwan lagu arko naasahooda inuu soo weynaade naasahoodu inuu aad u soo barare marxaladaas waxaa loo yaqaanaa gynecomastia inta aanan mawduuciga furan saaxiibayaal waa anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu like follow subscribe waa dhinaciina inaan layga baqeelin YouTube channelkayga iyo Facebook page-kayga aad iyo aad aan kaga mahadcelinaa sidoo kale wixii su'aal iyo talo iyo aragti waxaad iga soo weydiin doontaa address-kayga adigoo aad ka heli doontid YouTube description-ka iyo Facebook page-kayga gynecomastia waa xaalad in badan ku dhacdo ragga ama wiilasha qaybahooda kala duwan in lagu arko naasahooda hilibka ku hareereysanaa ama murqaha ku hareereysanaa inay dibcaan ayna soo weynaadaan ama ay bararaan marxaladan gynecomastia mararka qaarkood dhalinyaradu waa ay saameyn kartaa in labada naas si toos ay u soo weynaadaan qaab ahaan ay isbedelaan aadna ay u jilcaan hoosna ay u soo dhacaan sidoo kale mid ka mid ah naasahan in arintu ay saameyn karto inta badan xaaladan waxay ku imaadaa male imbalance hormones dhacamaadka ragga dhanka iyo taranka iyo awoodooda raganimo inay noqoto mid aan isku dheelitirneen qaar aan loo baahnayn inay aad u saramareen waxyaabaha ugu badan ee keeni karo waxaa ka mid ah in dhacaanka in badan ragga aan loogu talagalin inuu bato loona yaqaano estrogen in levelkiisa uu batay taasoo had iyo jeer keeni karta inay dabcaan murqaha sidoo kale unugyadii dabcan ay ka samaysmayeen murqaha oo isku haya qeybaha jirka kore ee xabadka ilaa iyo naasaha wareegood inay noqdaan kuba dabco waxayna ka dhalanaysaa marka estrogenku uu bato processka loo yaqaano aromatase kaasoo ah inuu jirkana uu ku yaraado testosteronka dhacaanka raganimada ee quseeya murqaha adkaanshahooda awoodda raganimada iyo shahwaadkooda in jirka uu ku yaraado processka marka uu dhaco estrogenka uu bato waxaa soo wajahaysa qofka in dufan badan lagu keediyo qeybaha murqaha naasaha wareegooda ilaa xabadka taasoo ay noqonaysa adipose fat tissue deposition inay ku keedgareysmayso dufan badan murqihii gudihiisa taasoo awoodii murqahana ay yaraanayso aadna ay u jilciso marka estrogenku uu bato haddii jeer looguma baran ragga inuu ku badan karo balse shaqooyinka ugu muhiimsan wuxuu u qabtaa dhanka iyo dumarka sidoo kale waxyaabaha kale ka qayb qaadan karo waxaa ka mid ah in qofka levelka prolactinka dhacaanka loo yaqaano dhanka iyo caanaha soo saara naasaha haddii jeerna aad ugu yar ragga inuu asagana uu bato waxyaabaha kale ee ka qayb qaadan karo waxaa ka mid ah cayil fara badan qofka inuu ku jiro sidoo kale fadhigiisa inuu badan yahay haddii jeer waxay keenaysaa dhacaamaadkii raganimada awooddii ragga inay yaraato taasoo keeni karto estrogenka inuu ku bato jirkooda naasihii iyo murqihii ku hareereysanaan ee dabcaan waxyaabaha kale ee ka qayb qaadan karo waxaa ka mid ah in qofka uu daawooyin si toosa mar walba uu qaato haddii ay jiraan in xanuuno hore ay u hayeen haddii jeer waxa ay keeni karaan murqaha awoodda naasaha xabadka inay dabcaan in meeshii ay noqoto inay soo dhacdo naasihiina lagu arkay inay aada usoo barareen sidoo kale daawooyinkaas waxaa ka mid ah daawooyinka allergiyada loo isticmaalo sidoo kale daawooyinkaas waxaa ka mid ah daawooyinka antihistaminiska kuwa gaaska lagu daaweeyo cimetidine sidoo kale famotidine sidoo kale waxyaabaha kale ee ka qayb qaadan karo dhanka isticmaalka daawooyinka waxaa ka mid ah cudurrada daaha dhanka iyo wadnaha in qofka marka daawooyinkooda uu qaato lagu arko naasaha inay soo dhacaan aadna u bararaan qofkina uu isku arko naasihiisa murqihii ku hareereysan inay aada u dibceen sidoo kale waxyaabaha kale ee ka qayb qaadan karo dhanka daawooyinka isticmaalka daawada antibiotic gaar ahaan metronidazole haddii jeer waxa ay leedahay effect inay gaarsiin karto dhankii murqaha waxyaabaha kale ee daawooyinka soo raaco waxaa ka mid ah daawada loo yaqaano finasteride haddii jeer waxa ay jilcisaa awoodda raganimada hoos ayayna u dhigtaa waxaana ka dhalan karo in murqaha jirka uu leeyahay difaaceedu inuu dibco qofkina xabadkiisa lagu arko inay soo dhaceen sidoo kale daawooyinka dhanka iyo dhimirka loo qaato haddii qofka uu la xanuunsan yahay cudurrada dhimirka sida anxiety naxdinta stresska
depressionska daawooyinkaas had iyo jeer waxay keenayaan inay waxyeeleeyaan dhanka iyo naasaha iyo hormoneska ragga waxaana kamid ah daawooyinka loo yaqaan antitetracyklic group amitriptyline sidoo kale daawooyinka naxdinta loo qaato iyo hurdo la-aanta diazepamska waxyaabaha ugu badan ee qofka kasoo muuqan karo in lagu arko arrintan wiilka ama dhalinyarada ama ragga waaweyn waxaa kamid ah naaska inuu dikaamo naaska marka ka dambeyso barar dhinacyada inuu ku arki karo sidoo kale markay arrintan ay daahdo in uu arkayo naaska in ibtiisu ay ka dhibceyso dhacaan sidoo kale inuu ku arkayo ibti wareegeeda xanuun iyo dikaan badan inta ugu badan 3 qeybood ayay usoo muuqan kartaa wiilasha marka ay dhashaan oo 3 bilo ugu horeyso in lagu arko inuu soo kuusto naaskooda sidoo kale taasi waxay ka imaanaysaa estrogenka hadii jeer hooyada ku badnaa inay usoo gudbo cunuga inta bilaha ugu horeyno uu noqon karo mid caadi u soo laabto marka uu jirkiisa u ka baabo sidoo kale in dhaxaadka wiilasha 15 ilaa 20 ku jiro in lagu arkayo ayagana sidoo arintaas inta badan ragga qaybahooda kala duwan 50 ilaa 60 hadii jeerna way saameysaa waxyaabaha kale ee dabcan ee ka imaan karto waxyaabaha kale ee dabcan arintan ee ka dhalan karto waxa kamid ah in qofka uu ka xanuunsan yahay dhanka iyo xiniyaha ama cancer inuu ugu dhacay ama buro inay ku taal hadii jeer waxa lagu arkaa in testosteronkiisa uu yaraado sidoo kale in naasiisu ay jilceen aadna ay u soo dhaceen waxyaabaha kale ee keeni karo waxa kamid ah in qofka uu ka xanuunsan yahay dhanka iyo qanjirka dhuunta ku yaalo kaasoo hadii jeer ka qayb qaata falgalada kiimikeed ee metabolismka jirka oo dhacamaadku uu ku soo saarayo waxaana meesha ku yaraanaya dhanka iraganimadii dhacamaadka ku qosay sidoo kale waxyaabaha kale ee ka qayb qaadan karo gynecomastia ama naasabarka ragga waxaa kamid ah in qofka uu ka xanuunsan yahay dhacamaadka laga soo daaya dhanka iyo maskaxda kuwaas oo raganimada qaabilsan loona yaqaano LH iyo FSH lagana soo daayay pituitary region inta ugu badan marka ay marxaladan isku arkaan gynecomastia ama naasabarka ilmaha wiilasha ama ragga waaweyn ku dhaco si toos ah daawooyin looma siiyo qofka dabcan waxa la baray in waxaan ay baaritaan u baahan yahay in qofka uu sameeyo dhakhtarka ku takhasusay inuu u tago si arintan check up loogu sameeyo baaritaan guudna loo sameeyo inta ugu badan marka baaritaanada la sameynayo qofka waa in la ogaadaa medical history taariikhdiisa hore daawooyin hadduu isticmaalayo arintan in daawooyin ay ka qayb qaadatay sidoo kale in check up lagu sameeyaa dhacamaadka inay yaraadeen raganimada kuwa qaarkooda aan loo baahnayn inay badiyeen sidoo kale in dhanka iyo xiniyaha testicular ultrasound laga saaraa computer sidoo kale dhanka iyo naasaha wareegada in la saaraa CT scan si loo arkay in waxaan isbedel dhanka iyo naasaha inuu jiro meelo kale ka saameeyay daawooyinka inta ugu badan la isticmaalo waxa laga hormariyaa in qofka loo sameeyo diet control cunooyinka culus laga joojiyo sidoo kale miisaankiisa inuu yareeyo sidoo kale in gym uu galo oo murqaha iyo jirka inuu dhiso hadii intaasi ay dabcan wax ay ku imaan waayeen aadna ay u badan tahay baruurti waxa loo sameeyaa significance u ah ama wax isbedel u keeni karo surgery kaasoo hadii jeer qalin lagu sameynayo xeerta hoose naasaha liposuction loo yaqaan lana soo bixinayo dufanti iyo dabcan meesha ku batay qofkana uu ka dareemayo in nafis badan uu ka helay qofkana caadi uu ku soo laabanayo wax dhibaato ay saameynayaan aysan ku leeyahay halkan ayaan ku joojinaa waa anigoo ah Dr. Maxamed Diiwaan Maxamed waxaan idin rajaynayaa dhamaantiin khayr caafimaad iyo barwaaqo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh